السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرين جنال كمركل السودة واضح أدي هذا ومهد سنتهين قال كان وحربا إن ندكول وذاقه ومحي ريال اي دي داد فربضان وإيكو وريرسيهين ريال اي دي محوي هاي أو قدام بين دقن قليه تضبضا بشا صوصة وتمان تمركل لقريبا تضبان معلومات أيا كهرسان هدي آذان ريال اي دي آذان هايسان إن أتقادتو هورتا مركا هوري real ID-gu muxuu yahay dad fara badan waa ay ku wareersan yihiin su'aalo ayaa la iga soo weydiinayay arintaasi ayaan rabaa inaan sharaxo goorma ayuu real ID-gan la rabay inuu dhaqan galo Congress-ku sababta ay u meel mariyeen maxay ahayd waxyaabahaasi oo idil ayaan rabaa inaan idila wadaago iyo dadka wadanka ka maqan hadda ma u baahan yihiin degdeg ku soo laabtaan oo ay ku qaataan real ID-ga waxyaabahaasi oo idil waxaan rabaa inaan muuqaalkan idin wadaago balse marka hore soo dhawaad ID-ga ayaan rabaa maanta muuqaalkan inaan uga hadlo real ID-ga waxa uu horta ugu dambeyn dhaqan galaya 7 bisha May ee soo socota oo maanta hadii laga reebo 7 maalmood ayaa ka harsan real ID-ga horta muxuu yahay real ID-ga horta waa laysanka qofku uu haysto hadii aadan laysan haysanina state ID ayaad soo qaadan kartaa gobolka aad joogto ID-giisa ayaad soo qaadan kartaa isagaasi ayaa real ID ku noqonaya marka arintan real ID-ga waxay Congress-ka ay meel mariyeen sanadkii 2005 waxaana loogu talagalay in ammaanka wadanka lagu sugo kadib markii ay dhaceen weeraradii 11kii September ee sanadkii 2001 oo New York lagu qaaday Twin Towers-kii waxaana ay micnaheedu yahay in guud ahaan goboladu ay dhinaca driver license-ga ay isku mid ay ka noqdaan ama laysanka dadku ay wataan in guud ahaan isku mid ay ka noqdaan si arintaasi ammaanka guud ahaan wadanka loo sugo isla markaana ay adkaato in qofku uu ka been abuuro laysanka guud ahaan gobolada Mareykanka arintaasi darteed ayaa marka waxa ay ka mamnuucaysaa qofku hadii uusan real ID-gaasi uusan haysanin in uu gali karo xarumaha dawladda federaalku ay leedahay waxaana kamid ah xarumahaasi in uusan tagi karin xitaa xarunta social security ama meelo kala duwan oo dawladda uu dan uga baahan yahay xarunta gobolka meelahaasi oo idil inuusan tagi karin qofkuna diyaaradaha ganacsiga ee gudaha uusan raaci karin isla markaana sidoo kalena waxa ay ka mamnuucaysaa qofku in goobaha nuclear-ka lagu sameeyo uusan gali karin waa dadka shaqaalaha oo ka shaqeeya ayaa laga wadaa in hadii ID-gaasi aysan haysanin aysan gali karin marka real ID-ga lagu sheegayo waa laysanka hadii aad 3 ama 4 sano ee la soo dhaafay aad bedeshay macnaheedu waxay tahay real ID-ga waad haysataa hadii aadan bedelina waxa kugu qasab ay tahay in aad bedesho hadii aad doonaysid wadanka gudihiisa inaad ku safarto hadii marka aadan haysanin maxaa dhacaya waan idin la wadaagaya sidoo kale laakiin real ID-gan dhowr mar ayaa dib loo dhigay dhaqan gelintiisa wasaaradda amniga gudaha ayaa ku shaqale markii ugu horeysay waxa la filayay maadaama 2005 ay Congress-ku ay meel mariyeen in 2008 uu dhaqan galo dib u dhac ayaa ku yimid 2013 ayaa haddana laga dhigay dib u dhac kale ayaa ku yimid January 20keedii 2014 ayaa laga dhigay haddana dib u dhac kale ayaa ku yimid waxa haddana laga dhigay October 1deedii sanadkii 2021 sabab la xiriira cudurkii coronavirus uu jiray maadaama goobaha laysanka laga qaadanayo ay dadka maskaraati xirnaayeen oo ay xadidnaayeen dadka tagi kara sidaas darteed ayaa dib loogu dhigay sanadkii 2000 iyo haddana 2020 sidoo kalena December ayaa laga dhigay haddana 2022 haddana dib ayaa loo dhigay maadaama goboladu ay yiraahdeen waxa nagu badan dadka soo dalbanaya sidaas darteed ma dhaqan gelin karno hadda ugu dambeyn marka waxa laga dhigay bisha soo socota ee May 7deeda sanadka 2025 aynu ku jirno sanadkan sidaas darteed ayaa marka loo baahan yahay in aad ku qaadato laysankaada hadii aadan bedelin sanadihii u dambeeyay in aad bedesho marka real ID-gu wax kala ma aha real ID-gu waa laysanka qofku uu wato hadii aadan laysan wadanina waxaad u baahan tahay in aad state ID aad soo qaadato state ID-ga isagana waa real ID sida waxa uu u soo baxaya laysanka oo kale marka labadaasi hadii aadan haysanin oo aad doonaysid wadanka gudihiisa inaad ku safarto maxaa lagaaga baahan yahay hadii aad green card leedahay green card-kaada ayaad horey u soo qaadanaysaa hadii aad passport leedahayna passport-kaada ayaad horey u soo qaadanaysaa military ID hadii aad leedahay military-ga aad ka tirsan tahayna isaga ayaad soo qaadanaysaa qofku markuu wadanka gudihiisa ku safrayo uma baahna passport
waxa uu u baahan yahay laysankiisa oo kaliya ama state ID haddii uu haysto ama in uu soo qaato. laakiin qofku markastaba baasaboorka ma wadi karo ama green cardka ma wadi karo, inuu ka dhumo ayaa halista. waadna ogtihiin processka loo marayo in mar kale aad dib usoo cusboonaysiiso oo aad dalbato. laakiin laysanka haddii uu kaa dhumo waa ay fududahay inaad BNP-da tagto ood cadayso oo tiraahdo laysankii ayaa iga dhumay, waxaan u baahanahay in aan laysan kala qaato. dadka hadda wadanka ka maqan uma baahnid, qofku markuu wadanka dibadiisa u safrayo real ID uma baahno, waayo baasaboorka oo kaliya ayuu u baahan yahay. marka haddii aad wadanka ka maqan tahay qasab maahan inaad degdeg kusoo laabato. hadhowdii marka aad soo laabanayso baasaboorkaada ayaad kusoo gelaysaa. marka aad wadanka imaatana real ID-ga waad qaadan kartaa oo laysanka waad bedelan kartaa ama state ID ayaad qaadan kartaa. laakiin haddii hadda dhowaan aad wadanka gudihiisa aad ku safrayso oo real ID-ga aadan haysanin, waa inaad kusii tala gashaa aeroboortka waqti ka badan waqtigii aad tagi lahayd inaad tagto, si hay-adda dhinaca baaritaanada aeroboorada ku shaqale oo TSA oo Transportation Security Administrationka baaritaan dheeraad ah ayaa lagu marin doonaa, maxaa yeelay adigu real ID ma wadatid. arrintaasi marka waxay tahay muhiimadda in ay dadku ay ogaadaan in real ID-gu uu sidaasi yahay oo aan qasab aysan ahayn qofku haddii uusan wadanin in macnaha wadanka gudihiisa xitaa uu ku safri karo. laakiin TSA-du dadka safrayay sanadihii ugu dambeeyay waraaqdan ayay siinayeen oo waxa ay ku dhahayeen hadda waa inaad maantaba aad qaadataa real ID-ga oo xarunta BNP-da aad tagtaa. marka gobolada qaarkood waa ay kala bedelan yihiin. muhiimaddu waxay tahay laysankaadu in xidig uu ku leeyahay dhinaca sare ee midigta ah. marka goboladu waa ay kala duwanaan karaan, gobol kastaba waxyaabaha caanka uu ku yahay ayaa ka muuqanaya laysanka. laakiin muhiimaddu waxay tahay in xidigtaasi midigta sare uu ku leeyahay laysankaada. haddii uusan ku lahayn macnaheedu waxay tahay real ID ma ahan, waa inaad xarunta BNP-da tagtaa islamarkaana aad horey usii qaadataa waxyaabo cadaynaya meesha aad degan tahay. haddii aad biilka aad bixiso utility-ga iyo waxyaabahaasi ayaa lagaa rabaa. muhiimaddu inaad cadayn aad sheegto marka aad qaadanayso real ID-gaasi. marka 7 maalmood ayaa hadda ka harsan. waxaa laga yaabaa haddii safar degdega uu kugu jiro 7 maalmood gudahood inuusan kuugu imaan, maadaama inta badan qofka aan horey laga siinin oo loo soo meelgareeyo marka laysankiisa uu qaadanayo. laakiin muhiimaddu waxay tahay in aad real ID-gaasi aad qaadato. xarumaha dowladda ma geli kartid wixii 7 bisha May ka bilowda haddii aadan real ID haysan. waxay noqonaysaa inaad green cardkaada horey usii qaadato ama baasaboorkaada horey usii qaadato. waxyaabahaasi waa dokumentiyo muhiima oo dadku inta badan aysan waaladkooda ku qaadan karin. haddii aadan sidoo kale baasaboorkaada waxaa la socda kaarka la yiraahdo passport card, kaasina waa muhiim qofku marka uu baasaboorka dalbanayo inuu la dalbado, maxaa yeelay baasaboorka markastaba ma wadi kartid. laakiin ID-gaasi baasaboorka la socdo waaladkaada waad ku qaadan kartaa. arrintaasina waa muhiim dadku in ay ogaadaan. real ID-ga laguu sheegayo oo dhaqan gelaya 7 bisha soo socota waa laysankaada. haddii aadan laysan lahayn oo dadka wadanka ku cusub aad tahay, waa inaad state ID aad dalbataa. gobolka aad joogto ID-giisa waa inaad dalbataa, isaguna waxa uu dhigmaa real ID-ga. marka arrimahaasi waa muhiim. dadka wadanka ka maqanna waa inay ogaadaan in hadda qasab aysan ku ahayn marka ay wadanka kusoo laabtaan kadib haddii aysan haysan in laysankooda ay bedelan karaan. arrintaasi muhiimka ayaan rabay inaan idila socodsiiyo. hal arrin oo degniin ah ayaan rabaa inaan raaciyo. dad fara badan ayaa maalmihii u dambeeyay ila soo xiriiraya oo dhahaya group 5 miyaa dib loo furay. dad waxaa jira muuqaaladeydii 2 sano ama 3 sano ka hor ahaa inta ay la degaan iyagu YouTube iyo bara bulsho ay leeyihiin dib u soo gasha inta ay wax ka badbedelaan. marka dad ayaa marka waxay soo qaadanayeen muuqaalkii maalintii u horeysay markii lagu dhawaaqay group 5. dad ayaa maalmihii u dambeeyay intay soo qaataan waxay soo gashanayeen baraha bulshada oo iyagu ay leeyihiin waxay dadka uga dhigayeen wax cusub oo aan hadda sheegay. marka meesha aad ka daawanayso muuqaalka iska hubi. haddii Cilmi Waare Media aysan ahayn, amaba Facebook page-kayga oo Cilmi Mohamed Waare, amaba TikTok-kayga oo Cilmi Waare aysan ahayn, dad kale ayaa muuqaaladeeda qaatay oo wax ka bedelay isla markaana dib u soo gashtay. marka anigu 3daasi bara bulsho ayaan soo geliyaa oo YouTube-kayga iyo Facebook page-kayga iyo TikTok-kayga. wixii ka baxsan dad kale ayaa isticmaala oo muuqaaladeedii intay wax ka bedelaan sawirro kale soo saaraan isla markaana soo gelinaya. taariikhdana iska hubi. markasta oo aan muuqaal bilaabayo maalinta iyo taariikhda iyo sanadka ayaan sheegaa. marka 2 sano iyo 3 sano ka hor muuqaalo ahaa
ayay dad hadda soo gelinayaan oo dadka wax cusub ay uga dhigayaan. Marka arrintaasina waxaan rabay inaan dadka la socodsiiyo oo ay ogaadaan dadkaasi inay yihiin dad muuqaaladeedii inta la degay dib iyagu usoo gashanaya baraha bulshada. Marka saddexdaasi bara bulsho oo aan leeyahay wixii aan soo geliyay ayaa aniga waxay yihiin muuqaalada aan soo geliyay, laakiin meelo ka baxsan iska hubi horta meesha aad ka daawanaysa muuqaalkaasi ma goob uu cilmi waare leeyahay mise waa meelka. Anigu bara bulsho kale malihi, saddexdaasi meelood ayaan wax soo geliyay. Arrintaasina waxaan rabay dadka igu xiran inaan u sheego ugana digo inay jiraan dadkaasi muuqaaladeyda iyagu si qaldan u isticmaalaya oo meelo iyagu ay leeyihiin inta ay la degaan muuqaalada dib u soo gashanaya, weliba iyagoo sanado hore ah oo aan hadda ahayn. Arrintaasina waxa muhiim ah dadku inay ogaadaan. Aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta. Intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idinla sida iyo nabadgelyo.